ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa ruuxay siyaasadda Abiy Ahmed waxaana uu taageero badan ka haystaa qowmiyadda uu asal ahaan ka soo jeedo. Jawaar Maxamed ayaa dhashay 12 May sanadkii 1986. waa wariye falanqeeyo siyaasadeed iyo mid ka mid ah asaasayaasha warbaahinta Oromada. Manacada diinta rasmiga ah oo haysto Jawaar Maxamed diimaha uu kulansaday hoyga uu ku dhashay ayaa sababay inuu taageero badan ka helo boqolaal kun oo ka mid ah qowmiyadda Oromada. Jawaar waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku soo qaatay dalkiisa Itoobiya waxaana uu shahaadada heerka koobaad iyo heerka labaad ka qaatay jaamacadda Stanford iyo Columbia sanadihii 2009 iyo 2013. sanadkii 2016 isagoo arday ah waxa uu sameeyay urur mideeyay jahaliyadda dibadda ee Oromiya. ururkan waxa uu dhabaha u xaaday inuu saameyn xoog leh ku yeesho siyaasadda Itoobiya waxaana Master Jawaar hormuud ka ahaa mudaharaadyadii ballaarnaa ee 2018 ka qarxay Itoobiya kuwaasi oo sababay inuu yimaado Abiy Ahmed. 2018 ayuu Jawhar ku soo laabtay dalkiisa waxaa markaasi ku soo dhaweeyay saaxiibkiisa siyaasadda Abiy Ahmed. haddase waxay u muuqdaan inay isasageen. 23 bishan ayay soo baxeen warar sheegaya in ciidamadii ilaalada gaarka u ahaa Jawaar la amray inay shaqadaasi banayaan balse taliska sare ee ciidamada Itoobiya ayaa warkaasi beeniyay. arrintani waxay mar kale sababtay in Jawaar Maxamed uu bilaabo shaqada uu ku caanbaxay ee kicinta qowmiyadda Oromiya waxaana maalmihii la soo dhaafay dalka Itoobiya ka dhacay mudaharaadyo xooggan kuwaasi oo taageero loogu muujinayay hogaamiyaha abaabulka badan ee Jawaar Maxamed. Axmed Siciid Xasan Axmed Shimaali wararka telefishinka Ariel Hargeysa.